Mr Beast shakhsiga ugu saameynta badan YouTube-ka ayaa hadda la kulmaya culays fara badan wuxuuna lumiyay taageerayaal badan oo ku xirnaa waalidiin fara badanna ilmahooda waxay kaga digayaan daawashada Mr Beast muuqaaladiisa maadaama Mr Beast uu soo gudbiyo muuqaalo challenge ah oo inta ugu badan ee daawadaan dhalinyarada YouTube-ka Twitter-ka meel walba waxaa haysto hadalhaynta Chris Tyson oo ah saaxiibka Mr Beast 2 bilood ka hor sidaan ayuu ahaa xaasle aaba ah oo u jooga wiil 2 sano jir ah laakiin hadda sidaan ayuu noqday wakaa gabadha isku bedelay magacayga waa Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada muuqaalkeen wuxuu ku saabsan yahay ninka aad wada taqaanaan ee Mr Beast ee maalmahan haysto YouTube-ka iyo meel walba muuqaalada daawashadiisana looga digayo qof walba oo dhalinyaro ah inuu iska joojiyo ninkan waxaa lagu magacaabaa Chris Tyson maalmahan waa ninka haysta YouTube-ka wuxuuna saameyn ku yeeshay Mr Beast in magaciisa iyo maamuuskii uu bulshada ku lahaa ay hoos u dhac ku timaado haddaba ninkan naagta iska dhiga ee Chris waxay saaxiib dhow yihiin Mr Beast dhammaan muuqaalada Mr Beast ayuu ka soo muuqdaa mar walba oo ay kaamirada Mr Beast qabato waxaa dhinaciisa taagan saaxiibkiis Chris Tyson. Chris, I've known him my whole life. Fun fact, right? He was actually my first subscriber. No joke. Chris was. He was here since day one. wuxuu ahaa xaasle waxaana u joogo wiil 2 sano jiro laakiin wuxuu bilaabay in si tartiib ah uu isku bedelo dhamaadka 2020 ayuu soo tweet gareeyay qoraalkan wuxuuna sheegay inuu yahay bisexual wuxuu sidoo kale sheegay asagoo 16 jir ah inuu cadeeyay inuu yahay bisexual laakiin waagaas wuxuu la kulmay nacayb fara badan hadda ayuuna toos u cadeystay macnaha bisexual waa qof labada dhinac xiriir la sameyn karo hadduu nin yahay nin ayuu la seexan karaa sidoo kale dumarkana oo la seexan karaa qoraalkaas tweetka kadib taageerayaasha wax saameyn ah kuma aysan yeelan oo waxba lagama soo qaadin bishii March sanadka hadda aan ku jirno 2023 wuxuu soo tweet gareeyay inay xaaskiisa kala tageen sawaanin meel loo watay wuxuuna si joogto ah u bilaabay in ciwaankiisa Twitterka uu soo dhigo qoomkan LGBT-ga ama dadkan qaniisiinta ah muuqaalada Mr Beast ayaa lagu arkayay Chris oo isbedelayo oo sidii lagu yaqaanay aanan ahayn asagoo timaha sii deestay cidiyaha rinjiyeestay labiska lagu yaqaanayna iska dhigay oo soo xiranayo labiska gabdhaha laakiin sidaas oo ay tahay taageerayaasha ku xiran Mr Beast wax saameyn ah kuma aysan yeelan oo waxaadba moodaaba inay ka sii jeedeen waxyaabahaas oo waxay u arkayaan inuu ninkan iska ciyaarayo maadaama muuqaalada Mr Beast oo dhan ay yihiin challenge laakiin wax walba hadda ay isbedelayaan qof ku soo galo Twitterka magaca Blix ayaa wuxuu soo dhigay 2 sawir oo ka turjumayo isbedelka Chris Tyson wuxuuna ku soo qoray bro maxaa dhacay waana meesha ay wax walba ka bilaabatay taageerayaasha Mr Beast ku xirnaa ayuu indhahooda kala furay dadkii oo dhan ayuu ku soo joodiyay waxaana bilaabatay kommentiyaal lagu caynayo ayadoo nacayb fara badan la tusay dadkina way u qaadan waayeen nin xaasla ahaa wiil u joogay qoyskiisa ku faraxsanaa in hal mar uu iska dhigo naag Chrisna wuxuu ogaaday in meel walba dagaal looga soo qaaday wuxuu retweet ku sameeyay ama uu soo qaatay qofkii soo dhigay sawirkiisa wuxuuna ku soo dul qoray HRT waxay ahayd 2 bilood oo kaliya HRT macnaheedu waa hormones replacement therapy waa process ay isticmaalaan dadka qaniisiinta ah oo isbedelayo in hormonesyada loo kala bedelo oo hadduu nin yahay oo laga dhigayo qof dumar ah lagu badiyo hormoneska estrogenka Chris wuxuu sheegay in muddo 2 bilood ah uu qaadanayay hormoneska estrogenka hadda uu cadeystay Chris inuu yahay transgender oo iska dhigay qof dumar ah taageerayaashii iyo dadka ku xirnaa Mr Beast hadda way u cadaatay in Chris uu noqday qof dumar ah wuxuuna isdhahayay culayska iyo dagaalka uu ka digi doonaa maadaama wixiisa uu cadeystay laakiin maxaa ku dhacay sidoo filay ma aysan noqon meeshaas ayaba kaga sii dartay oo waxaa la bilaabay in meel walba lagu caayo lagana sameeyo memes sidee aabo wiil u joogo oo nin rag ah inuu iska dhigo qof dumar ah dadku way u qaadan waayeen mar walba oo Mr Beast muuqaal uu soo dhigo commentiyada dhan waxaa lagu weerarayay Chris ayagoo waliba dadka ay ku dhigeen Mr Beast oo ay leeyihiin oo muuqaaladaada ma ninka noocaan ah ayaa ka soo muuqan doono taageerayaasha Mr Beast ku xirnaan waxay bilaabeen in subscribe-ka ay kala noqdaan channelka Mr Beast wuxuu ahaa channelka ugu korista badan YouTube-ka laakiin hadda maalmahan waxaa ku dhacay hoos u dhac aad u weyn haddaba taas waxaa sababtay in Mr Beast ninkan uu taageero qoraal tweet ah uu soo dhigay ayuu ku sheegay inuu garab taagan yahay waana meesha ay Mr Beast taageerayaashiisa ka xumaadeen waalidiinta iyo dadka saameynta kula Mareykanka ilmahooda waxay kaga digayaan inay iska joojiyaan daawashada Mr Beast muuqaaladiisa maadaama ninkan Chris ee naagta isku bedelay uu faafinayo fikradda qoomoloodnimada ama qaniisnimada wuxuu dadka oga dhigayaa wax fiican waliba asagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay in dadka hadda ay barteen waxa laga wado HRT qoomkan ama dadkan qaniisiinta ah fikradooda meel walba ay ku faafinayaan dhalinyarada hadda soo kacisana ka dhaadhacsiinay in waxyaabahan ay wax fiican yihiin laakiin waxa Ilaahay mahadiisa in dagaal adag lagu la jiro waxaana wadamadan Westernka ka socdo dagaal ama ololo lagu joojinayo fikradan inay faafto Elon Musk bought Twitter because he used Twitter. It's as simple as that, and he was infuriated by Twitter's effort
to silence people on the internet. gadashadii uu gatay Elon Musk Twitter-ka waxaa soo baxday in qoomkan dagaal adag lala galo oo dadka looga digo in fikradooda ay faafto ka hor gadashada Elon Musk lama ogoleen waxyaabahaas in looga hadlo Twitter-ka oo qofkii wax yar oo dhaliila u soo joodiyo Twitter-ka ayaa laga xiri jiray laakiin hadda Elon Musk uu fasaxay in dadkan Twitter-ka lagu jafo waraysiga ee BBC-da la yeelatay maalmo ka hor waxay ku sheegeen inuu ogolaaday in Twitter-ka lagu faafiyo hate speech ama waxyaabaha dadka ay dhibsanayaan waxay ka wadaan nacaybka loo qabo dadkan qoomuluudka ah. Do you think you prioritize freedom of speech over misinformation and hate speech? Elon Musk wariyihii wareysanaya wuxuu u sheegay inuusan arag waxyaabo dadka ay dhibsanayaan ama hate speech waraysigaasna wuxuu ahaa waraysi aad saameyn u leh oo dadkan fikradooda haddaad ka hor imaado waxay kugu yeerayaan waxaad gudbinaysaa hate speech wariyaha Elon Musk wareysanayana wuxuu meesha la soo fadhiistay waxaa Twitter-ka ku soo noqday Andrew Tate oo ciwaanka Andrew Tate waa ay ka xireen laakiin hadda Elon Musk marka uu gatay kadib Andrew Tate ciwaankiisa waa loo soo celiyay. Were previously banned for spreading things like QAnon conspiracies. You have people like Andrew Tate who were brought back, who were previously banned for things like hate speech. haddaba dadkan qaniisiinta ah waxay dadaal dheer ku bixinayaan sidii fikradooda meel walba u gaarsiin lahaayeen adigana mar walba ka feejignow oo wacigaaga ha sareeyo muuqaalka inta aan gabagabeyn waxaan idinka codsanayaa haddii aad kamid ahayd dadka Mr Beast muuqaaladiisa daawada oo channelkiisa ku xirnaa kamid noqo dadka hadda unsubscribe ka dhahay oo kala noqday taageeranimada si uu u dareemo in dadka ay ka soo horjoodaan ama aysan ku qanacsanayn fikradan ama waxyaabahan la bumbuuninay ee khaniisnimada subscribe-ka kala noqo unsubscribe dheh channelka Cabdiqafaar Gamaadiid imow subscribe ku qabo waqtigaagana waad ku mahadsan tahay.